الحمد لله رب العالمين الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم horta ilaahay mahad subxaanahu wa tacaala horta maanta waxa weeye waa maalin qiimo weyn ku leh taariikhda Soomaaliland ku yeelanaysa insha Allah tacaala waxaan hambaliyanayaa marka horeysa guurtida horta guurtida waxa loo abuuray gabigeeda waxa loo abuuray loo sameeyay guri aqalkaas golahaas waxa weeye inaanay reerna ku abtirsan xusbina ku abtirsan ay noqoto gole ka madax banaan siyaasadda oo danta uu ka taliya waxa weeye golaha qura wax ay soo gooyeen dad la soo doortay oo baarlamaan ama wakiilaha uu yiraahe iyo dawladba gafuur ku dhufan karta awooddaas leeyahay awooddaas ma isticmaali jirin reereen noqdeen tanayseerbay noqdeen asxaabay galeen laakiin maanta waxay waajibkoodii loo sameeyay ay horta maanta doorteen waxaan leenahay hambaliyo maanta intii Soomaaliland jecleed inay socotana maanta waa u farxad intii doonaysay Soomaaliland inay gasho muran iyo yooyootan iyo iska laadlaasina maanta waa u dhimasho komishiga hala kala diro arrin weyn mahmuudin ahayd 7 qof baa la diidan yahay ma ahayn arrin masiirka Soomaaliland lagu mijaxabanyahay anigu ilaa 2011 2002 ayaan doodaha kordhiska soo maray oo marka cigaal baa jooy ilaahay naxariistay ilaa 2009 markaan 6 point soo saarnay intaan ku jirnay soo kordhiska maalin door ka xumeed ma jirin laano markii hore intii hore dhan isku qalbi baan ahayn waxaan ugu jirin influence kale ana is jiidanay laga doorka influence baan ugu jiray shay anigu intan dalkan ay wax badan subhanahu wa ta'ala oo aan hindisay ayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala taydi ka dhigay waxa igu adkaa intaan hindisa keenay hindisii iraan kaga dhiginay gudoomiyaha baarlamaanka iyo tan maanta 5 bilood baan ka shaqeynay arintaas inay suurto gasho doorashaas inala dhaafin 2019 lana waxaan ogeyn waxa la damacsan yahay baan ogeyn anagu manihiin local way jirtaa dad iska ka calcalaashado lacag buu qaatay oo isbedelayo waxa adduunka socday garanayo lacag waxay garanayaan qaad la cunayo laakiin waxa ku leeyahay arintan das and life baheed waa guul inoo soo hoytay waxaan hor taagan qodobo kale waxa weeye misaamiqa ismigii kuraasida iyadana waan dhameynaa insha Allah taala wax lagu wada raaliyahay maadaama aan layna tirin oo sens jirin berigii aan sameeynay waxaan oran jiray haddaad dayax la waayo xidigaha lagu socdo oran jiray berigii aan jirin diwaan gelintu waan ka tabsanaa waxa jirtay waxa weeye waa dhaqaalaha waxa weeye horta markii inagu isku tashana waa inagu ceeb inaynu wax doorashooyinkeena oo 12 milyan u badan tahay inaynu u xayirnaana shisheeye ma ilaahay haduu dadka shisheeye wax naga siiyo ilaahay mahad subhanahu wa ta'ala hadii kale inaga isku tashanayna iyadana waa dhafeena waxa ogaataan guurtiga xilkeedu waxa weeye inay muddada ay ka dhamaanayso golaha markaa fadhiya ay sheegaan laakiin muddada ay dhacayso doorashadu timetable-keeda commission kale commission waxa leeyahay hadda hawlgala waqti timeline samaysta insha Allah taala isku iskareeya waqtiga si degdeg inuu sameeyo madaxweynaha waxa leenahay ku talagal lacagtii la sameyn lahaa ayaan ku sameeyay tii weyn tanbaheed waxa kale waa dhaafin insha Allah taala haway Soomaaliland waxay haysataa jaanis fiican bay maanta haysataa hadii ka faa'iideysano Soomaaliya jiq bay gashay dhiirigeeda bay dhashay waan ka xunay horta marka hore Soomaaliya wixii lagu sameeyay South East meesha la yiraahdo South West loo bixiyay waxaan aragnaa cunfi iyo caga jugleeni inaanay waxaan u sheegaynaa maamulka Muqdisho
inaanay magaranaysaa danta wixii loo soo diray ahayn reconciliation baa loo diray inay Soomaaliya Itaaliya hagaajiso Soomaaliya laakiin quwad baan isticmaalayaa dadka suuqan ku tooganayaa mudaharaadka waxaan isticmaalayaa ciidamo shisheeye cawaaqib xumo baa leedahay laga joojaleena waxaan leenahay ninka laga doortay dhulka Garowe waxaan leenahay waxaad ku dayataa madaxweynaha hore Faroole Soomaalidu maanta meel ay joogto nabad bay u baahan tahay daris wanaag baa laga baahan yahay labadaada gobol iyo barkaaga hagaajiso intuu Faroole hagaajiyay rag ka horiyay samee wadadii Cabdi Wali Gaas harraacin laana adu waxay keenin maqaaditid wad miyo yaariisay waxaan filayaa inaad adu ka fiicnaaso miyir qabtid waxaan leenahay anagu soo dhaweynaa wax badan baa laga wada shaqeyn karaa Soomaaliya maanta u baahan magaranaysaa in gacan la siiyo u baahan roolkeeda waan ka ciyaarnaa insha Allah taala ina waa jaarkeena nabad noqoto waanu ka ciyaarnaa magacii Soomaaliya waa biyan Soomaaliya caarkeeni dibaddu yaala dayarada maalinta la dhacayo ummadda Soomaaliyeed oo leeyahay waxa la dilayaa shabaab marmarsiya loo helay Soomaaliya dhulkeedii la boobo waa ogtiin badii waxa ka dhacaya badii China la siiyay yuuma juujkii la sheegi jiray ayaa la gurta kalluunka Soomaaliya وقرنا وحراش بوتاجن تقرنا ماشي على هايست تاساسان لهاي نبض باندون هاي وحنا نقولوا وحنا تقولون كي وها قاعد ستين مقالون باكدكتين يقولون نقولوا الاستاجري ما توا مقالوا عاصمة واتكبورنا رقباتين يدمر في عن باتين سمايست Soomaaliya wuxuu u baahan Soomaaliland Soomaaliya wuxuu u baahan san ku gaari mayna qaradkeena ictiraaf san ku heli mayno waa qaybsanahay dadka la mid ah leena umadeena waxba ma siino dhalinyarteenu maanta 180 way taqaawan tahay xaq meel kale waxa qal eegayaan nabad baa haystaan nabad caanaha lagu daran leenahay umadeena biyo ma siino biyo way iibsataa caafimaad ma siino caafimaad way iibsataa waxbarasho ma siino way iibsataa nalka way iibsataa wada ma haysato saadowda ma lagu ma noqdo siyaasiyiintan waxaan leeyahay ninka siyaasiga ma aha inuu dadka qaybiyo dadka siyaasiga waa inuu dadka mideeya unifier noqon waxaan jecelahay inaynu inagu gamcaysaysana doorasho wanaagsan qabanaa ka leexanaa leesan leena baranaa aan dad wanaagsan oo iimaan leh aan qabanaa insha Allah taala reform buu dalkan u baahan yahay isbedel xoog loo baahan yahay isbedel baa loo baahan yahay waxaan ku samayn karnaa inagu horta marka hore khilaafkeen dhexdeeda samaysana ummad iska laalaada ummad caytamisa imad yootamisa qaran ma dhisi karto ummad aan tuulo wada yeelan karin qaran ma wada yeelan karto ummad magaalo kala sheeganaysa burcada barbara burcada bare hargeysa koonfurta hargeysa waqooyi hargeysa dal lagu ma dhiso dalka wuxuu u baahan yahay hoggaan buu u baahan yahay in la adkeeyo la baahan yahay sharci buu u baahan yahay waxa jira shakhsiyaad nala jooga oo qalbiga kala socda ma jeerteynay waana maalmoodka iga caaya meesha adeer waxaan leenahay hadda caashaqsantiin Somaliland maaha ma jeerteen da u taga laakiin anaga nagu dul caayimaysaan dalkeega markana soo fargeliyaan Garowe waan la hadlaynaa ninkii boqor burhaan jecelo da u tag halkaas uu fadhiyaa laakiin anaga igu tumatid oo aydiigu calaalisita ka qabal ma waxa weeye walaal dalkan waa loo dhintay shacabigana uu dadaalay 27 sano bil ictiraaf u jaay wadooyinku dhistaa guryahay dhistaan biyay samaystaan in lagu ciyaaro maaha anagu Soomaaliya lama colihin gacan fiican u farinaa gacan baanu siinaa waxaan leenahay Soomaali guryaheeda hagaajisto kuwa leh Soomaaliya wada hadal siinaa maalmahan waxa laga dhigtay civil society Soomaaliya maalinta qaar koofiyadaha baa lahaa waxaan ka hadlaa arrimaha Soomaaliya wada moojo wadaadi waxa ahayn alla waratina hagaajista Soomaaliya way dhisan tahay taada daryeela teodii baa dariiqa ya baylaha oo adduunku la yaabsan yahay Soomaaliland ka hadlaya Soomaaliya gacanta la geeyaa waana taalideena kaliya shanaad waxa ka socda isbedel Ethiopia isbedel baa ka socda isbedelkaas waxaan mid nabad noqdo insha Allah taala ilaahay nabad ku dhameeyaan doonay Ethiopia ina ilaahay inagu dilaacin ayaanu ka doonay nabad isbedelka wada magaca ra'iisul wasaaraha doonay Soomaaliland waxaan raacay Soomaaliland qabiil wax lagu ma noqdo Soomaaliland qaad wax lagu ma noqdo Soomaaliland midnimo wax lagu noqdo wixii da Soomaaliya ay loobina dadka waxaan leenahay ninka kursiga doonaya ninka lacag doonaya dalku haduu hagaago oo la ictiraafo wuu inaga badan yahay maqaawil baan doonaa
maanta markaad eegtid securitygeenu ma dhama immigrationgeenu ma dhama haddaanan waddanku aanu yeelan intelligence service oo ka shaqeeya khatarta gudaha iyo khatarta dibaddaba dee nabaddeenu khatar bay ku jirtaan waxaan leenahay hala xoojiyo nabad sugidda hala xoojiyo hala xoojiyo immigrationka hala xoojiyo leenahay waad ogtihiin gidaaradiina waxa ku dhaliya dadkii dawarsanayay oo ah dad ka yimi Ethiopia waad ogtihiin masaajida lama tagi karo yacni ummad dhan oo isxambaarsan bay nagu dhex noqon waxay noqonay joonyad magaalada koosara timira oon afka ka daboolen Somaliland waxaan leenahay madaxweynaha waxay waddankan wuxuu u baahan yahay reform waddankan wuxuu u baahan yahay midnimo wuxuu horumar buu u baahan yahay yooyooto ma baahna ku jiiqsina looma baahna wax iska celina looma baahna waxaa wada qabsaa loo baahan yahay waa inaynu gacanta u fidinaa caaro u fidinaa qof quri inaga maqnaada maaha waa inuu dadkeena midayna haddaan inagu qaybsannahay waxba iska celin mayno waxaan leenahay ninkaa caare cadhoodana kiiskaaga waa la geliyaa dadkaa ku soo noqo xaalad jabad lagu sameeyaa ma jirto Soomaaliya nabad buu haysata SN waxay ka sameeyay cadaadis nafil caarid bahed waxa maanta ninka guriis jooga caare u tagay ma jira cidna u tagay yani cidla lagaaga ma maaleen yani cidla laga yaman midna baan ku baaqin haddaan nahay cud wadan waxaan leenahay insha Allah ka soo qayb gala waan haddaan la wadayna wada hadalkii in inagu wada socona dowladda wanaagsan sameysano oo adduunka inala macaamilo markaan talaabo dib hor u qaadana laba dib u qaadina waxaan leeyahay insha Allah in hore loo socdo horeynu socono biidnaa kariim wassalaamu calaykum wa rahmatullahi